filimku waxa uu furmay markii ay Joy yaraan nolosheeda aad ayay ugu faraxsanayd in ay la noolayd waalidkeed ayeedeed iyo aabaheed Becky. waxa ay sidoo kale leedahay saaxiibka ugu wanaagsan ee lagu magacaabo Jackie oo had iyo jeer u taagan tan iyo yaraanteedii farxad ayaa ku riyoonaysay riyo ay rabtay in ay abuurto farshaxan cusub. markii ay Joy kortay waxay la kulantay nin aad u qurux badan. Anthony ninkan Venezuela u dhashay waxa uu hiwaayad u leeyahay heeso ay markii dambe guursadeen oo ay u dhaleen 2 caruur ah, balse aakhirkii waxa ay ku qasbanaadeen in ay kala tagaan sababtoo ah Joy waxa ay la tacaali weyday caajisnimada Tony. xataa Tony ma awood u leh inuu daryeelo caruurtiisa. Tony wuxuu weligiis ku riyoon jiray inuu noqdo heesa caan ah, sidaa darteed Joy way ku adag tahay inay keligood qaataan dhammaan arrimaha gurigooda. inkastoo Tony weli uu jecel yahay farxad xitaa furiinka kadib wuxuu weli ku nool yahay qaybta hoose ee guriga Joy waalidkii waa sidoo kale waa la furay. Joy aabaheed wuxuu ka tegay qoyskiisa wuxuuna guursaday naag kale. tan iyo markii la furay Joy hooyadeed waa ay niyad jabtay. waxay ku mashquulsan tahay daawashada riwaayadaha saabuunta ee telefishinka. maalin maalmaha ka mid ah Joy ayaa helay iyada iqwa samaynta kuleejka ayda. silsiladu way ka duwan tahay silsiladaha kale, laakiin waxay furtay Joy's Old Wound sababtoo ah abuurkeeda waxaa sheegtay shirkad kale sababtoo ah waxay aad uga daahday inay shayga ku iibiso. waqtigaas Joy waxay u shaqaynaysay sidii wakiil boos celin ah, balse shaqadeeda ma sii waarin ayaa shaqada laga cayriyey sababtoo ah shirkadu waxay hoos u dhigtay shaqaalahooda. dhibka Joy ayaa noqday mid cakiran markii aabaheed oo naag kale qabay uu mar kale kala tegay Joy aabaheed kadibna ku soo laabtay gurigii Joy oo uu rabo inuu ku noolaado. farxad ayaa la yaabtay iyada. aabuhu waa inuu gurigeeda iska joogaa. xaqiiqdii ma jirto meel aabihiis u taal marka lagu daro Joy hooyadeed kadib furiinka. dhibka si buuxda uma soo kabsan markii Joy aabaheed hadda yimid uu ku riyaaqay hooyadii. isla markiiba muran baa dhex maray ilaa uu aabihii ka jebiyey waxyaabo ka xumahay. malab idoon ma jecli sheegeen xataa, sidaas darteed Joy weli way aqbashay aabaheed oo way weydiisatay inuu kula noolaado qolka hoose ee ninkii hore ee Tony. Joy waxa uu ku celcelinayay heeso isagoo arkaya sodogiis hore oo soo socda. Tony ma jeclayn, sidaa darteed waxay ku doodeen in Joy ay qaadatay duub oo xuduudeeda. Tony iyo aabaheed seexday. farxad yar iyo Tony waxay ku kulmeen xaflad ku taal goobta. Joy ayaa waxaa ka qarsoomay waxqabadkii Tony intii uu haystay. waxay sii sheekaysanayeen. Tony waxa uu la wadaagay dareenkiisa ku aadan noqoshada heesa caan ah. taasi waxa ay farxad gelisay in ay aad ula yaabto, waayo waxa ay dareentay in Tony nolosheeda aysan la mid ahayn nolosheeda keli ah. taasi waxa ay ka dhigaysaa in ay Joy jeclaato Tony. tan iyo markaas way is-shukaansadeen kadibna waxay guursadeen Rudy. Joy aabihiis ma jeclayn Tony tan iyo bilowgii guurkooda. farxad iyo arooska Tony Rudy ayaa khalkhalgeliyey xafladda. keliya maahan in Rudy sidoo kale ka soo horjeedo Tony's obsession si uu u noqdo heesa caan ah. Rudy wuxuu u malaynayay inay ahayd keliya dib u dhac iyo waqti lumis. hal habeen Joy ayaa la kulantay Jackie. waxay u sheegtay dhibaatooyin kala duwan oo ka dhacay gurigeeda dhowr maalmood kadib si qarsoodi ah. Rudy waxay ku biirtay hay'adda matchmaking isaga oo dareemaya kelinimo. ugu dambayntii waxa ay la kulmeen haweeney hodan ah oo lagu magacaabo Trudy. dhanka kale Joy hooyadeed waa ay argagaxsan tahay sababtoo ah biyo mareennada qolkeeda ayaa xidhmay. markaasay biyuhu ka soo burqanayeen Rudy iyo Trudy oo qorsheeyey kulankoodii ugu horreeyey. ee kulankaas waxa ay dareemeen in ay ku habboon yihiin oo ay go'aansadeen in ay xidhiidh jacayl la yeeshaan si ay ugu dabaaldegaan. Trudy waxa ay ku casuuntay Rudy in ay raacdo doonteeda gaarka ah. Trudy waxa ay sidoo kale Rudy ka codsatay in uu qoyskiisa ku casuumo in ay yimaadaan maalinta xigta iyaga oo ku baashaalaya iyaga oo cabaya khamriga cas. si lama filaan ah doontu wax yar bay u leexatay. farxadna si lama filaan ah ayay u jebisay muraayadii farxadda. kadibna waxa ay nadiifisay muraayadii jabtay, balse markii ay garaacday xaaqida waxaa gacanteeda dhaawac ka soo gaaray firirka muraayada. Joy markaas ayaa u dhaqmaysa si la yaab leh. dad ku wareersan waxa ku dhacay farxadda waxay u qaateen in farxaddu daalan tahay. markii ay Joy seexatay ayay si lama filaan ah fikrad u heshay. xitaa waxay dareentay inay la kulantay wax yar farxad oo awood u lahayd inay abuurto wax yar oo cusub. farxad ayaa xasuusisay qof weyn oo faraxsan. haddii hal 7 sano ee lasoo dhaafay ay lumisay farxadda markaas ay toosto oo si lama filaan ah. Tony waxay u sheegtay in ay si degdeg ah u guurto sababtoo ah way kala tageen mana fiicna haddii ay weli guri ku wada nool yihiin. Joy sidoo kale waxa ay si la mid ah aabaheed ku tidhi. Joy waxa ay aabaheed ka codsatay in uu si degdeg ah u guuro sababtoo ah aabaheed ayaa kala tegay hooyadeed, balse Rudy waa ay diiday.
Joy waxa ay dalab u bandhigtay aabaheed. Joy waxa ay aabaheed ka codsatay in uu ka caawiyo in ay lacag ka amaahato Trudy. Joy waxa ay rajaynaysaa in Trudy ay maalgashi ku samayn doonto ganacsigeeda. Kadib Joy waxa ay isla markiiba fikradeeda ku shubtay sawiro. Kadib markii Rudy ay la sheekaysatay Trudy, Joy ayaa markaas lagu casuumay inay sharaxdo fikradeeda. Sida muuqata Joy wil fikradda ah inaad samayso xaaqin la yiraahdo xaaqin mucjiso ah oo aan gacanta lagu tuujin balse la isticmaalayo kabaal makaanig ah. Xitaa xaajada ayaa iska soo yeeri karta balse weli waxay ku jahawareereen sharaxaadda Joy oo weli qaab muuqaal ah ku jirta. sidaa darteed Joy waxay ahayd in ay marka hore ku samayso qalab macmal ah iyo iyada oo kaashanaysa shaqaalihii aabaheed ee goobta aqoon isweydaarsiga. Kadib Joy waxa ay dib ugu laabatay in ay u sharaxdo Trudy iyo aabaheed balse si ay maalgashi uga hesho Trudy uma fududa sida loo malaynayo. Trudy waxay doonaysaa inay ogaato sida ugu xariifsan tahay in ay farxaddu u maarayso ganacsigeeda. Trudy ayaa Joy weydiisay dhowr su'aalood. marka hore, halka ay Joy aadi jirtay dugsiga. labaad, maxay guulaha ay heshay Joy markii ay dugsiga ku jirtay. iyo su'aashii saddexaad, haddii ay ku jirtay dugsiga qol halkaas ku taal oo keligeed ay ku taal ninkeeda ganacsi. Qori ayaa ku faraxsan inay rabto inay toogto ninkeeda ganacsiga. Farxad ayaa ka jawaabtay su'aalahaas oo dhan. waxay sidoo kale ka jawaabtay su'aashii saddexaad ee ahayd inay qoriga qaadan doonto. kadib Trudy ugu dambeyntii waxay diyaar u tahay inay maalgeliso lacagteeda caasimad ahaan.